cabdiqani mulkiilaha shirkadda Nuux Construction Company waa shakhsiyaadka markaanu doonno inaanu cid masaakiina ama cid kale u doono dadkaanu aad ugu xisaabtano mulkiilaha daada yar leh cabdiqani Nuux Ibraahim Wacays oo ah mulkiilaha shirkadda Nuux Construction Company oo markasta dhalinyarada garab tahay maanaanu arag shirkad faciiga ah oo magaalada ah oo garab taagan dhalinyarada ayaa Nuux Construction dhalinyarada ay soo jiidatay waxay ku soo jiidatay sidoo uga faa'iideynayo dhalinyaradii wuxuu tabcaday sidoo dib ugu celinayo shirkadda Nuux Construction waa shirkad curdina marka loo eego shirkadaha gobolka jiray laakiinse way ka saameyn badan tahay halka wax qabadka wato shirkadda Nuux Construction waa shirkad aad u ballaaran oo wanaagsan waxaan ka mid ahay ciyaartooyada maalgelisay shirkadda Nuux Construction Company ee ciyaaraysay liiga Gibiley ka socday oo dhalinyarada garab qabata waa shirkad sports waa shirkad dhalinyarada waa shirkadda kaliya ee Gibiley sportiga dhalinyarada caawisa shirkadda dhismaha ee Nuux Construction Company oo run ahaantii mar walba iyo goor walba heeliyahooba la garab taagan dhalinyarta sportiska shirkadda dhismaha ee Nuux Construction Company ayaa magaalada Gibiley ku soo kordhisay qaabab cusub ama dhisayno cusub oo loo dhiso dhismayaasha kala duwan ee magaalada kaasi oo dhismayaashii hore ee magaalada kaga duwan tayada oo ay aad uga fiican yihiin qiimaha oo ay ka jaban yihiin isla markaasina ay yihiin dhismayaal casriya shirkadda Nuux Construction Company ayaa waxay inta badan ka shaqaysaa sidii ay u taageeri lahayd dhalinyarada kubadda ciyaarta sidoo kale shirkadda dhismaha ee Nuux Construction Company waxay ka shaqaysaa arrimaha bulshada oo ay qayb libax la ka qaadato magaalada Gibiley si ay uga qayb qaadato dadka tabaalaysan oo ay caawiso dadka baahiyaha gaarka ah oo gargaarto si ay shirkadda dhismaha Nuux Construction ay bulshadeeda wax ugu celiso maamulaha guud ee shirkadda Nuux Construction Cabdiqani Nuux Ibraahim ayaa sheegay inay ka shirkad ahaan markasta garab taagnaan doonaan dhalinyarada si ay u dhiirigeliyaan kooxdii goodir ee ku ciyaarsay shirkadda Nuux Construction Company ay ku guuleysatay safar fiican insha Allah Ilaahay idinku rajeynaya waxa taageerada la garab taagnaa wax rajeynaya insha Allah inaan barbareys ku arki doono mar walba waxa naga go'an dhalinyarada dhiirigelino garab istaagno waxa weeye marka dhalinyartu la dhiirigeliyo ay businesskuna barakooba taa lagu bishaaraysto dhalinyarada kala duwan ee magaalada Gibiley iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Gibiley ayaa si weyn u taageeray shirkaddan casriga ah isla markaasna ka qayb qaadata bulshada reer Gibiley iyo dhalinyarada oo la hadlay ayaa waxa shirkadda ku tilmaameen mid anfac weyn u leh bulshada reer Gibiley mahad ballaaran uga jeedinaya shirkadda Nuux Construction Company oo ah shirkad dhan walba qaybaha bulshada ka qayb qaadata sportska arrimaha bulshada ee kale baahiyahan dadkan baahiyaha qaar ka qaba ama danyarta waxa weeyaan cabdiqani waa shakhsi cabdiqani mulkiilaha shirkadda Nuux Construction Company waa shakhsiyaadka markaanu doonno inaanu cid masaakiina ama cid kale u doono dadkaanu aad ugu xisaabtano cabdiqani iyo shirkadiisu way ka yar tahay shirkadaha gobolka laakiin way ka manfaciyo wax qabad badan tahay shirkadaha gobolka haddana contribution kasta oo ama sports ahaado ama arrimo bulshada ahaado ama xaalad kale ah ku yimaado ama danyar ahaade waxa weeyaan shirkadda koowaad ee qayb weyn ka qaadata waa Nuux Construction Company waxa weeyaan aad buu ugu amaanaynaa cabdiqani kaalinta weyn ee uu gobolka ugu jiro iyo bulshadeedaba mulkiilaha daada yar leh cabdiqani Nuux Ibraahim Wacays oo ah mulkiilaha shirkadda Nuux Construction Company oo markasta dhalinyarada garab tahay maanaanu arag shirkad faciiga ah oo magaalada ah oo garab taagan dhalinyarada taasina waa turwaalaha iyo damqashada ay ku caanka tahay Nuux Construction Company waa shirkadda kaliya ee kooxaha magaalada maalgelisa waxaan ka mid ahay ciyaartooydii soo maray kooxyay maalgelin jirtay ama gacanta ku haysay shirkadda Nuux Construction Company waxaan xasuustaa oo dareen gooni ah sanadkii hore kooxda Nuux Construction Company kooxay maalgelinaysay oo gacanta ku haysay in ciyaartooyada loo soo xulay heerka gobol ee ka qayb galayay wareegii gobolada in majority-ga ciyaartooyada Nuux Construction Company gacanta ku haysay majority-goodii ka qayb galeen waxaanu hayn 13 ciyaartooy waxaana ka qayb galay 10 ciyaartooy oo kamid ah shirkadda maalgelinaysay kooxda Nuux Construction Company taasina waa abaal weyn oo aanu hayno mulkiilaha daada yar leh shirkadda Nuux Construction Company shirkadda Nuux Construction Company ma dhisto kaliya guriyo tayadoodu sareyso ama dhisanadoodu loo bogay macala waxay soo saartaa ciyaartooyo tayadoodu sareyso oo macala loo xulan karo heer qaran shirkadda Nuux Construction Company waa shirkadda markasta
ka maaweelisa ama mukhaadaraadka ka ilaalisa dhalinyarada gobolka isboortiga. shirkadda Nuux Construction Company waa shirkadda kaliya ee mar kasta garab taagan dhalinyarada. waxaan leeyahay shirkadaha kale ee magaalada wixii wanaagsan waa la iskaga daydaa shirkadda Nuux Construction Company kaga dayda garab istaaga dhalinyarada. waxaan barnaamijkan kaga faa'iideysan lahaa shirkadda Nuux Construction oo sportiska Gabiley door weyn ka qaadatay hadday noqoto garab istaaga dhalinyarada iyo caawinta dhalinyaradaba. Nuux Construction oo mulkiilaha Cabdiqani Nuux uu leeyahay aasaaskayga qanacsatadii kale ee ka maalgashi badnayd ee ka dakhli badnayd ee ka lacag badnayd ee shirkadaha isla dhismuhun ah ayaa Nuux Construction dhalinyaradii ay soo jiidatay. waxay ku soo jiidatay siduu uga faa'iideynayo dhalinyaradii wuxuu tabcaday siduu dib ugu celinayo. marka halkan fariin waxaan uga dirayaa qanacsatada magaalada Gabiley inay ku daydaan shirkadda Nuux Construction. runtii tartankii horyaalka imika dhamaaday hal shirkad oo qanacsata oo gaar loo leeyahay ama la wada leeyahay oo sportiska Gabiley ka qayb qaadatay ma jirto marka laga reebo Nuux Construction iyo shirkadda internetka nasiisay. marka Nuux waxaan leeyahay waxa weeye waa qayb u soo hoyatay sportiska Gabiley. ilaahayna qanacsiga Cabdiqani ee Nuux Construction u barakayaan leeyahay. baahiyaha gaarka leh dadka xanuunsan qayb kasta oo kamid ah bulshada oo wax la ururinayo qayb uu ka qaataa. shirkadda Nuux Construction waa shirkad curdina marka loo eego shirkadaha gobolka jiray laakiinse way ka saameyn badan tahay halka wax qabadka. marka runta halkeeda loogu tago way ka dhalinyar ahaan anaga uu garab taagan yahay sportiga qayb weyn buu ka qaatay. maanta sportigu meel wanaagsan buu marayaa oo wuxuu gaaray heer maanta kooxo ay lacag qaataan laakiin shalay waxay taagneed iyadoo kooxna lacag qaadanayeen oo kubadda ciyaartooyda ay ku ciyaarayaan ay ku adkayd. Cabdiqani waqti noocaas ayuu kala soo dabaashay ciyaartooyda wuxuu iyo hooba la garab taagnaa ilaa maanta oo ay gaadhay inay mushaar qaataanna uu garab taagay. shirkadda Nuux Construction qayb weyn bay ka qaadataa baahiyaha dhalinyarada. mar labaad iyo mar saddexaad Cabdiqani waxaan ku leenahay dadaal halka ka sii wad ha ka caajisin annaguna ku garab taaganahay. horta shirkadda Nuux Construction waa shirkad aad u ballaaran oo wanaagsan. waxaan ka mid ahay ciyaartooyada maalgelisay shirkadda Nuux Construction Company ee ciyaaraysay liiga Gabiley ka socday. waxaan ka mid ahay ciyaartooydii ku guuleysatay tartanka. runtii si qurux badan oo wanaagsan ayay noo garab taagnayd oo hagar la'aan oo wax kasta oo aan u baahanahay wayna la garab taagnayd. runtii Cabdiqani Nuux aad baan ugu mahad celinaynaa sidaa wanaagsan ee quruxda badan leh ayuu noo garab taagnaa mar walbana gacanta noogu hayay. halkan fariin ama baaq waxaan uga diraynaa ganacsadayaasha Gabiley. runtii waa ganacsiyaal way soo ogyihiin wayna iskaranayaan. markastoo TV-ga laga hadlayo ama meel la iskugu yimaadana oo lala wada hadlaa. kulley la hadalku macna ma sameynayso laakiin waxa wanaagsan inay shirkaduhu dhalinyarada garab istaagaan waayo shirkadda ninka haysta shalay isba dhalinyar buu ahaa. dhalinyarta maanta la garab istaaga laga yaabaa walaalkooda ka yaree maanta soo koraya inay iyaguna garab istaagaan hadhow mustaqbalka. marka waxaan leeyahay dhalinyartu maadaama ay mustaqbalkii waddanka yihiin marka loo baahan yahay ganacsatada mar walba looma baahna hal mar baa loo baahdaa. marka loo baahan yahay inay garab istaagaan. waxaan ka hadlanaa shirkadda Nuux Construction Company oo dhalinyarada garab qabata. waa shirkad sportis waa shirkad dhalinyarada waa shirkadda kaliya ee Gabiley sportiga dhalinyarada caawisa. hadday noqoto tartamada hadday noqoto qalabada lagu ciyaaraya hadday noqoto dhiirigelinta garoomada yar mini garoonka. Cabdiqani Nuux waxa weeyaan ninka kaliya waa nin sportis waa nin dhalinyarada ku dhex jira waa ninka kaliya maanta waxaa shirkadda Gabiley ka jira waa ninka kaliya dhalinyarada maxay ahayd wax u qabta. waxaan u leenahay abaal badan baan u haynaa waan u ducaynaynaa. waa nin aan isku hayn waa nin sportiska soo ciyaari jiray maxay ahayd waa nin ilaa imkana sportiga ku dhex jira. Nuux Construction waxay bartan aan uga hambalyeynaa shirkadaha dhan ee Soomaaliland ama Gabiley oo kala jooga. waa shirkadda kaliya ka qayb qaadata tartamadii hore ka qayb qaadatay tartankii imka horyaalka Gabiley ee dhamaaday ay ka qayb qaadatay. waxaan kaliya leeyahay waan u mahad celinayaa Cabdiqani Nuux waa nin firfircoon waa nin sportiga Soomaaliland maanta baal dahab kaga jira ama gaar ahaan sportiga maxay ahayd Gabiley. isna waxaan leeyahay xagga Ilaahay baad ajir ka helaysaa. anigoo magacaygu yahay Sitaan Cabdi Jaamac kana mid ah dhalinyarada sportiska ee gobolka Gabiley
waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa oon mahad ballaadhan oo la soo koobi karin halkan uga soo jeedinayaa shirkadda dhismaha ee Nuux Construction Company oo run ahaantii mar walba iyo goor walba hiiliyahooba la garab taagan dhalinyarta sportiska oo waqtiga iyo daqiiqada ay u baahdaanba waxay uga baahdaan ka caawiya oo hiil badan la garab taagan waxaan leenahay halka hore uga socda hawl wanaagsan ee dhalinyarada iyo mujtamaca magaalada ee gobolka Gabiley baad u haysaan ilaahay idinka jisaaidsiyo idinkana ilaahay ganacsigiina wanaagsan sida wanaagsan aad u wadaan ilaahay idin barak run ahaantii kooxdeeda boolis ee macalinka oo ahay aad ayay shirkadaasi u soo garab taagnayd uu hogaamiyaha ka yahay Cabdiqani Nuux Ibraahim waxa weeyaan nin dhalinyaro oo sportska door weyn ku lahaa oo ciyaari jiray qacanta kubadda kolayga ee kubadda qacanta run ahaantii wax kastoon u baahano una siin jiray diriiska sharibaadada buufintooda biyahayaga haddaan shidaal u baahano shakhsiyan xitaa ciyaartooyada baahidooda kale uu dhammaystiri jiray oo waxyaabaha ay ciyaartooyadu shakhsiyaan uga baahdaan kooxdeedoo keliya maahine kooxo badan oo isagu samaystay oo la baxday magaciisa Nuux ayuu lahaa oo fiisadada u saari jiray dariisada ka bixin jiray run ahaantii Cabdiqani garwadeenka uu ka yahay shirkadiisa Nuux Construction Company horta gobol ahaan Gabiley ahaan sida uu noo garab taagan yahay